سيدنا مولانا محمد maanta oo ay bisha Juun tahay 5 maanta oo ay bishu tahay 5 Juun waa maalinta deegaanka adduunka oo dhan sidaa darteed inaguna waxaynu ka mid nahay caalamka aynu la wadaagayno maalinta deegaanka iyo daryeelkiisa haddaba maanta wasaaradda deegaanka ee gobolka Awdal magaceega aan ku hadlaya waxay bixisay dhir dhan 800 geed taasoo aanu ku soo kala beernay goobo kala duwan oo kamid ah magaalada Saaka galinkii hore iyo ugu yaraan 500 geed oo kale oo aanu ku qaybinay xarunta wasaaradda gobolka ee Boorame waxaanu leenahay dadweynaha ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo soo jeedinay haddana wasaaradda deegaanka waa waxa lagu nool yahay manfaca ugu badan maanta aynu ka haysanaa waa geedka hadii la waayo neefkii xoolihiin ma jiray إننا dhaqaaleeynu wuxuu ku xidhan yahay xoolaha runta marka lagu xisaabtamo boqolkiiba 75 waxa lagu qiimeeyaa in dadkeenu ay ku nool yihiin dhaqaalaha ka soo gala xoolaha nool haddaba sidaa darteed maadaama dadkeenu yahay dad u badan xoolo dhaqato ma ka maarmi karnaa daryeelkii deegaanka ayaa taala taas waa maya haddaba waxaan leenahay dawladahaan iyo wasaaradahaan iyo shacbi ahaanba waxa qurux badan in loo soo dajeesto dhamaanteed sidaynu ilaashan lahayn deegaankeena caalamku oo ogtiin waxa la yiraahdo climate change baa ka dhacay cimiladan isbedelaysa waxa keenay deegaankeenan la hiroorgareeyay ee la baabiyay ee aad moodo inaanay cidiba ka dambeyn maanta sidaynu ku soconno run ahaantii waynu arkaynaa hase yeeshee haddii shacbi ahaan iyo xukuumadahaadba gacantaana isku qabsanno waxaynu gaari karnaa dadaal aynu wax badan kaga soo kama karno sidaa darteed waxaan jecelahay mar labaad inaan u mahad celino wasiirka wasaaradda Mr. Shukri Xaaji Bandare oo aad nooga qayb qaadatay sidii aanu maalinta kulley intii awood ahaan gobol ahaan aan uga muuqan lahay dadweynaha reer Awdalna waxaan leeyahay sida fiican ee maanta nooga qayb gasheen beerista aanu soo bandhignay aad iyo aad baan idinka mahad celinaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.